asxaabta qaaliga ah, caawo waa hameen farxadeed, caawo waa hameen qaali ah, caawo waa hameen cajiib ah oo maalinteedana maalin ku xigta insha allah yowmul carafa ay ahaan doonto maalin oo aad iyo aad yani dhacdooyin aad u cajiibsan dhici doono. caawa waa hameen oo qaali ah oo laba wax oo aad qaali u tahay inaad diyaarino. waxa ay dhihi doontiin coach Maryan, taariikhda ma ka khaldan, caawa ma hameenkii iiday, hameenkii farxadda, waa hameen dambe. waxaan kugu jawaabi doonaa adigana horta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي نبينا هرتا كبلابنو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. asxaabta qaaliga wax lala yaabo ma aha inaad aragtid nin ilaahay caza wajal xoolo siiyey, hanti badan siiyey, inaad aragtid dad oo intaas daba ceersanayo oo daba socda oo yacni maalkiisaas iyo xoolihiisaas raba inuu wax ka siiyo. laakiin waxaa cajiib ah oo maskaxda geli karin oo aad lala yaabo tahay asagii laftirkiisa ninkii xoolaha iyo hantida lahaa inuu asagii dadkii ceersanayo oo marba qof weydiisanayo oo dhahayo oo biliis ma rabtaa inaa wax ku siiyo, waryaa raba inaa beer u gado, waryaa raba inaa guri u dhiso, waryaa raba inaa deen ka bixiyo, waryaa lacagtaan raba, waryaa siiya, waryaa raba inay wax oo noloshiisa yani wax ka taraayo inaan siiyo lacag. يعني سبحانه تاس وعجيب، تاس ومد مدعضو. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى تلمامد أوين إلهي بالغ وضع. يعني إلهي عز وجل وملك الملوك، إلهي وملك الملوك. الدون كانوا لن هدا اسكسو دوبتيد إلهي عز وجل وحبنا الله معها وبال محالي هذا بهشي أو بعوضة كناعو وبال كناعو. يعني وحبنا الدون كان لهم wax kastana asaga leh، everything from A to Z. الدون كان الدومada kale iyo wuxuu dhan rabb العالمين، ilaahay hal caalam ma laha، caalamiin badan buu leeyahay. subhanallah asaga leh، asaga ku tasarufaya, qofku rabu siinaya, qofku rabu ka qaadaya, qofku rabu cirka geenaya, qofku rabu dhulka geenaya. ilaahay asaga yani malakul muluk ah. marka waxa cajiib ah ilaahay عز وجل oo saas oo yani malakul muluk ah saasoo tahayna naxariistiisa iyo jaceylkiisa oo ibni aadankiisa iyo cabiidkiisa oo jecel yahay darteed buu hameen kaste buu soo degaa soo degitaan oo qurux badan oo asaga kaliya yaqaano. yani yanzilu ila samaa'i dunya nuzulan yaliiqu bihi. oo subxaanallah oo ku hore dadka yani dadku weydiinaa waryaa raba inaa wax siiyo, waryaa raba inaa dembigiisa dhaafo, yaa jira haysa oo caafimaad rabo ilaahay caza wajal caafimaad siiya, yaa wax u baahanuu siiya, yaa dembigiisa dhaafa. saas buu ilaahay hameenkaasoo dhan weliba thuluthul akhiir, yani haddii hameenkii 3 qayb loo qaybiyo, hameenkii qaybta ugu dambeyso salaada fajrka markuu soo dhow yahay, qaybtaas oo hameenkii ugu dambeyso u dhow buu hameen kasta soo degaa. laakiin caawa waa leylatu carafa. caawa subxaanallah waa nacam hameenada kaleba way ka mid tahay, hameenu yani qiyaamu leyl oo ilaahay caza wajal soo digi doono way ka mid tahay hameenka inta ugu dambeysa. laakiin maalinta carafana ilaahay caza wajal the whole day from qoraxda ilaa iyo maghribka ilaahay caza wajal sidii camal buu usoo degayaa asagii malaa'igtiisoo dhan caza wajal. subxaanallah oo waxay noqonaysaa xaflad oo rabbaani ah, xaflad oo ilaahay caza wajal oo ku faanaya cibaadkiisaas oo xajka jooga oo carafo jooga oo gacmaha u taagaya iyo intii kaloo dhan adduunkan meel kasta ay joogaan oo ilaahay u soomaya. intii soomaysana ilaahay caza wajal waa deeqsi, wuu naxariis badan yahay. dembigooda maalintaas kaliya uma cafinaye, dembigii sanadkii hore waxay dhigeen iyo wixii soo qaseen iyo wixii kastoo sameeyeen buu u dhaafayaa. sanadka ku xigana wuu u dhaafayaa, sanadka soo socdana wuu u dhaafayaa. dadka carafo jooga kuwaas warkooda iska dhaafa, kuwaas dembigoodii wuxuu ka dhigayaaba kaanamaa inay weligood dembi sameynin oo yani sidii markii dhasheen camal oo beejkooda eber u ahaa buu ilaahay usoo celinayaa. taasna waa naxariista iyo jaceylka iyo wanaaga iyo deeqsin alla ilaahay deeqsisana subxaanallah caza wajal.
marka maalinta carafa waa maalin cadiim ah, laakiin caawo waxaa lagaa rabaa laba waxuu qaali inaad diyaarisid. labadaas waxuu qaaliga kow waa qalbigaada waxaa lagaa rabaa inaad diyaarisid oo khushuuc iyo yaqiin iyo inta ka muhiimsanna istikfaar. ilaahay casa wajal ibni aadan baa nahnay, waa dembi badan nahay, dembiyaa ognahay inaan ku jirno iyo dembiyaal badan ah xitaa ogeyn inaan ku jirnaa jirta, ma ku baraarugsaninbna. marka waxaa lagaa rabaa inaa ilaahay casa wajal si kal iyo laab ah uga berisid dembi kasta, midaa ogtahay iyo midaa ogeynba. yaa allah, ya dembi siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahay maruu saxaabi u sheegayay oo ku saabsanay dembiga, يعني استغفارتا سيغوين كذا كلا دوان. اللهم اغفر لي ذنبي كله، ذنبي يورن أوله وآخره، كان أقول رأيه كان أقول ضمبايا، علانيته وسره. ماذا يعني ضدك أجيهن يميد أوقفنا أجينا أنا كلي يعني أنا قل كتشرا أما أنا كلي تشوفه أن سمعنا أنيجي إلهي أن ذنبي جاس مرك وحلا جاربا ذنبي كستمد أو سرة يميد أو علن أوله وآخره ظاهره وباطنه. ذنبي كستب إنا كتوبة كنتد oo ilaahay casa wajal waxaa laga rabaa qalbi oo saafi oo ilaahay u toobad keenay oo aad iyo aad uga shalay dambi kasta uu soo galay oo ilaahay casa wajal ka balan qaadaya inuu dambi dambe inuu sameynin. ibni aadan baa ta daciif waa tahay, shaydaan uu jira, laakiin at least adiga waxaa la imaataa yaqiin iyo yani ikhlaas inuu ilaahay casa wajal intii karaankaada intii awoodaada ah dambi kasta inaa caawa nacday oo ilaahayna ka balan qaadaysid inaad ku dhici doonin. wixii mustaqbalka dhaca waa taas, laakiin adi waxaa la rabaa inaa ilaahay casa wajal si kal iyo laab iyo run oo dhab ay kaa tahay inaad dambi dambe inaad galeynin, inaa ilaahay ugu toobad keentid, wax kasta khalad kastaa samaysana inaa nacdid oo yani oo ilaahay casa wajal oo uga toobad keentid. maalinta carafa waa maalinta oo ducada yani nabiga sidoo calayhi salaatu wasalaam sheegay khayru ducaai yowmu carafa. يعني intee qisadood aan kaaga sheekeyn karaa. subxaan allah, aniga laftirkayga coach maryan nimcooyin badan oo ilaahay isiiyo iyo kheyraad badan waa kheyraad yowmul carafay ka mid tahay. subxaan allah, iyo dad kaloo badan intee yani laba qisadood ama saddex qisadood horta nii soo koobaya. gabar waxaa jirto intaasu sano wax ay dhali jirin, ilaahay maalinta carafa intii qalbi iyo saafi ula imaatay ee ka barisay ilaahay casa wajal. laba waxay qalbigayga soo galay tiri oo aad u jeclaada, midna inuu ilaahay dhuriyad isiiyo, intaasoo sanaali qabaa ilmo ma dhalin, ilaahay casa wajal dhuriyad saalixaad ah oo wiil iyo gabar isii. iyo tan saddexaadna oo ilaahay qalbigayga aad u soo gashay ina aad u jeclaad. yani subxaan allah, marmar ilaahay yani markuu rabo inuu wax kuu sameeyo qalbigaada biducada soo gelinaya, wixii baa aad u jeclaanaysaa. waa calaamadaha oo waxaas inuu ilaahay yani markaa si fiican ugu ducaysidii qadarta ilaahay casa wajal. adducaa yugayiru lqadar. ilaahay casa wajal qadar badan wuu ku bedelaa. duco keliya aad ducaysa, hameen aad ducaysa buu qadartaadoo dhan ku bedeli karaa. marka waxay tiri laba wax baa ku ducaystay, inuu dhuriyadaas oo weliba gabar iyo wiil specific bay ahayd, iyo inuu xajka isiiyo, inaa xajka xajiyo. waxay tiri subxaan allah, subxaan, horta maalintaas yani waxaan ilaahay uga baryay oo u oynay sida baby yar, sida ilmo yar oo yani waalidkood maantoo dhan wax kasama arka. ilmaha markay wax jecel yihiin ee waalidkood xoog u baryayaan oo maantoo dhan garkay jilbaha iyo dharka ka qabsadaan ilaa ii samey please. saas camal baa u haysta. walilaahi almathalu alaclaa. oo yani ilaah u baryayo, u oynayo, u duceysanayo, oo subxaan allah maalintaasoo dhan si fiican ugu duceysanaya. labadaas wax inuu ilaah ii aqbalo. waxay noqotay subxaan allah ducadeydii inuu 3 sano ay yani igu qaadatay inaan arko oo ilaahay casa wajal waxyaalaha ku duceystay. waxay tiri sanadka ugu horeeyay gabadhii baa ii imaatay, sanadkii ku xigay wiilka buu ilaahay igu irsaaqay. yani gabar buu sanadkii ugu horeeyay siiyey,
sanadkii ku xigayna ilaahay caza wajal wuxuu ku minaystay ku arsaqay walad, sanadkii ku xigayna way sanadkii soo xajisay. marka waxay tiri ducadeydii 3 sano igu qaadatay subxaan allah, sanadna gabar, sanadna wiil, sanadna xajka. yani ilaahay wuu deeqsi, ilaahay waa deeqsi. nin kalena wuxuu dhahay subxaan allah, anigana kadaalika ilaahay sa u bari jiray gaari oo gaariyaashan oo fiican baa haysan jiray waagaas. Uber iyo maxaa la yiraahdaa iyo shaqooyinkan oo electronica ama app kala dalbanaya ma jirin. waxaa jiri jirta in ama number la waco ama dadka ama meel dadkaas maraya gaariyaashaas arkaan hadhow dalbadaan gaarigaas camal. sidii saas wax badan ima soo geli jirin buu dakhli badan ama xoolo badan gaarigaas igama soo geli jirin. maalintii dambe carafaan duceystay an subxaan allah ilaahay casa wajal wuxuu dhasaa maalintaasoo dhan u duceysanaya ilaahay inuu risq xalaal waasic siiyo, oo ilaahay casa wajal oo diiqadana hadda ku jiro iyo kharashkan iyo yani waa nin oo reer iyo dad iyo ku xiran yihiin. markaas يعني إلهي وحو كبري إنو رزقيسا واسع كدغو وحو دسا إلهي ودعيسنا مالنتا سيده ويل يربا او يبودهاي. maalintii dambe wax isbedel ma arkin, maalintii ku xigtay isbedel ma arkin. alla ilaahay nolosheedu iska socotay sideedii bay u socotay oo sideedii baa diiqadii iyo shaqada iyo shaqo la'aanta ugu jiray. markii dambe 3 bilood ka bacdi waxaa dhacday anoo maalin jidka maraya nin baa arkay oo gaari fiican wata oo laakiin gaarigii baa ka banjaray. jidka kuleel buu ahaa, wadamadaas carabta oo kuleelka miiran bay ahayd. jidkii gees buu taagan yahay, gaariyaashoo dhan way dhaafayaan, asagana gaarigii buu taragarayna inuu wax ka hagaajiyo. waa uu istaagay, waan kaxeeyay, waa arknay yani inuu gaariga marka gaariga gadaal uga xiray, gaarigiisu gaari weyn buu ahaa, gadaal buu uga xiray. labadii gaari way isla socdeen. markii isla socdeen meel garaash buu geeyay. wuxuu dhahay garaashkii aniga marka gaarigii markaasaa u geeyay oo ninkii ka degay gaarigaygii oo gaarigiisana laga qaaday meesha. waan ka xishooday inaan dago oo ninkii la istaago. waxaan uga xishoodan because lacag hadda hadii xitaa la dhaho gaarigan lacaga lagu sameynayo oo ninkii dhaho oo yani aniga uguma talagalan iyo ma haayo iyo aniga inuu ixraaj ugu dhaco oo markaas yani ku ceeboobo meeshii ninkii caawini kari waayo oo haduu dhaho walaalo lacag ma isiin kartaa because ma haayo waxaan siiyo ma haayo aniga ba intaas ya Allah baan ku imaaday. marka wuxuu dhahay waxaan ka xishooday inay hadii kharash soo baxo oo ninkiina bixin waaye anigana inaa bixin kari waaye oo mid kalena waxa igu dhacday yani waana ka xishooday inaan ninkii ka tago asagoo gaari la'aan oo hadii garaashkaas gaarigii la dhaho dhowr maalmood ay qaadan doonta hagaajintiisa ilaa qof kale u baahan yahay meelahaas. iyo waana ka xishooday inaa ka tago, waana ka xishooday inaa kala daga gaarigii oo la istaago asaga agtiis istaago. marka gees baa gaarigii ku baarkin garay, meel halkaas baa iska istaagay. markii dambe nimankii buu la tacaamulay, wixii buu hooshi buu dhameeyay. markuu dhameeyay buu ii imaaday, wuu arkay wali inaan meeshaas taaganahay, wuu ii imaaday. wuxuu dhahay please adi nin oo si caadi ahayn ii caawinay baa tahay. dadkii oo dhow iga dhaqaaqeen, telefoon ma haysanin, wax badan baa iga hadlaysnaa, waqti duruuf oo aad u adag baad i caawintay anuu ku jira. marka waa ina abaalmarin ku siiyo, please numberkaada iyo accountkaada isii. marka waan ka xishoodo dhahay, laakiin wuxuu dhahay ani lilaahi baan u sameey markasta ama adiga ha ahaato ama qof kale ha ahaato markastaba waa caawini lahaa. marka taasna yani tacliiqayga ama commentkayga on that, weligaa haddii ku imaato opportunity ama fursad ibni aadan ku caawintid ilaahay dartiis u caawin, ilaahay dartiis u caawin. kheerkaas aad qofkaas gelisay iyo enerjigaas iyo waqtigaas xitaa kaaga dayacmay ama waxaad u samaysay waxaad ogaataa ilaahay casa wajal laba laabkeed iyo laba jibaarkeed buu ku siin doonaa oo adduunyadan buuba ajarkii iyo kheyraadka kugu soo dedejin doonaa. intee dad oo ku leeyahay anaka dad baa caawinay kabacdina markaa dhowr saac ama maalmo ama isla caawinaada u baahneen anakana ilaahay casa wajal dad kaloo noo sakhiray. يعني كان الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه بو إلى بحديث الورد هاي. مركا إنا دتك لعاونو يعني أذا دنكو جرتا أذا مركا لبعتك جشيد وحكو عاونا أذيجن هيليسا. مركا دتك عاونت مركا لبعتك جشيد دت أذيكو عاونا ده هيلي دونتا مركا عاونا دتك مركزته دتك تعيش إنا خيرك إنا عاونتيد.
ninkii wuxuu dhahay ani ilaahay dartiis baan kuu caawinay, hadduu qof kale ahaa lahaa saas unbaa u gali lahaa. wuxuu dhahay anyway please waxaad isiisaa nambarkaada. ninkii nambarkiisi markuu siiyey, markii dambena accountkiisi buu siiyey. wuxuu dhahay ninkii wuxuu iisoo diray lacag aan yacni subxaan allah aan marna filaynin. yacni xitaa haddaa 3 sano shaqeeyo lacagtaas marna ima soo galayso. ilaahay casa wajal lacagtaas buu ii kala furfuray, ra-imaal buu iga dhigay, business baa gashtay, meeshii businesski baa ilaahay ii barakeeyey. subxaan allah, halkaas baa risqi xalaalo waasic dayib. marka sheekada wuxuu ku imaatay yowmul carafa. ducada maalinta yowmul carafa ducaystay 3 bilood ka bacdi already subxaan allah khayraadkii iyo wanaagii maalintaas yowmul carafa ku ducaystay baa ilaahay risqi xalaalo waasic iga siiyey. gaarigii waa iska tuuray, risqi xalaalo waasic oo badan baa helay. marka yacni ilaahay waa deeqsi, ilaahay waa kariim. gabar kaloo qisad kaloo cajiib ayadan waxay tiri nin baa isfurnay, ciyaal baa isku dhalnay. ciyaalkaas hayntoodiina yani yaa haysan doona, ani ma haysan doona, asaga ma haysan. waxay tiri maxkamad baa intaas isa kor jirnay oo dagaalo badan baa naga dhex dhacay, anigii cidaydii cidaysii, dagaal adduun loo yaro. xitaa haddii communication oo jirana, xitaa haddii wadahadal jiro, wadahadalkaas looyaradaa isla hadli jira, yani saa isku necabnaha, isku dagaal badan lahe. anigii waxay tiri xaala nafsiyan galay, deep depression baa galay, dhib weyn baa isoo gaartay oo nafsi ah oo maxaa la yirahdaa. marka maalintii dambe aabahay iyo hooyaday xaj bay u socdeen. way ila soo fariisteen, waxay dhaheen aniga iyo hooyo, aniga iyo yani aabaheed baa ku dhahay, aniga iyo hooyada iyo walaalkaaba xaj baa u soconaa, adigana xaalkaada waa u jeednaa, marka mana raacaysaa bilaa ilaahay casa wajal xaalkaadii wax ka bedelay. markaas waxay tiri okay waa ni raacaya. xajkii 2 maalmood markii ka dhiman tahay masa ninkii isfureen baaba text message usoo diraya oo leeyahay heblaayo xajkan u socdaa, بليس أسعفنه عفية مسامح أسعفنه أنا حجكم أسعدا عفية مسامح وحا خلط كاقلي ويابتي أبيت وشكت أبو نيكي إنتاسو سنو لو يرى نقد لحين شري حدو تكس مسج كاسو قري وحود هدي أديغنا عفي أساقن وإنو كو عفي بيكوس أديغا بحج بأسعطا مركا أديغنا دي عفي سويريسو إلهي بأقو حا خلط سمينا أنا كبا ما يريسانين مركا أساقن يعفي كله سيدي بأقو قرطانيغنا وأسعدا يعفي بس وان بحني تري anigii familigeyga aabahii hooyaday xajkii baa aadnay kacbadii ixraamkii maka kulli hadhow markaan qaybta oo la imaaday qaybta oo teendhooyinka la degayo mina hameen la seexanayo oo subaxda dambe carafa la istaagayo mina markii la imaa marka badanaa dadka marka ugu horeysa markii xajka imaadaan lasma arka de magaalada way weyn tahay hoteelada dadka kale laakiin meelaha badanaa aad la isku arkayo waa teendhooyinka markii mina la imaaday meelahaas Musdalifa mina baa dadka intii isku meel ka imaatay isku xamladooyin isku jiha ka socota badanaa dadka halkaas isku arkaan wixii tiri anigii markii carafa la gaaray oo salaatul casr la gaaray khaymadeyda teendhadeyda aan ku jiray waxaa qalbigayga ilaahay geliyay inaa aado jabalkaas oo dadka badan taagan yihiin inaa ilaahay casa wajal intii casarkii maqribka u dhaxeeya inaa halkaas kusoo duceystay ilaahay casa wajal يعني بعد الظهر بأهد مرك هالكاسات دمعي أنا كسو دعيستو وان تغي ماشي أني walaalkay waan soo duceysanay markaa soo noqonay oo hameenkii isku soo noqonay aabahay iyo hooyaday kulli markaas aabba wuxuu ileeyahay hooyo aamin aabo waxaan arkay ninka isqabteen baa arkay wuu isalaamay si fiican buu isalaamay de maxaa la yiraahdaa halkaas buu si fiican buu isalaamay waa kala tagnay okay khair waagii dambe xajkooda iska wateen ilaahay casa wajal wuxuu tir maalintaas ilaahay waxaan ka bariyay hadduu asagana khayr ugu jiro iyo caruurtaas khayr ugu jiro dhibaatadaasna soo gaartay ilmihii soo gaaray ilaahay farash khayr qaba inuu noo furo baa inta jabal carafa taagnaayo dhan ku duceynaya
anyway ilaahay casa wajal wuxuu qadiray inuu ilaahay muqallib alquluub asagaa labadoodii 2 week ka bacdi inuu intuu imaado raali haliga noqdo cafiya masaamax khaladaadkii wixii galay oo dhan cafiya masaamax de ilaahay baa kariim ilmahana waa isla dhalnay adinkana hooyaday aabahay baa tihiin adinkana waani wada jeclahay de hoosha meesheeda ka wadano qoyskeena soo ceshano marka maxaa la yiraahdaa ilaahay faraj khayr qaba ha furo marka subxaanallah gabadhii qisadeeda waxay ahayd saas buu ilaahay faraj khayr qaba ugu furay oo ilaahay casa wajal sidii jecleed oo ilaahay u galay marka qisooyin badan intee gabdhood xitaa gabar waxaa jirta ayadana dhahaysay oo intee sana sugayay ina gur yani ilaahay casa wajal igu irsaaqo maalintii dambe maalintii carafo oo maalintaasa ilaahay casa wajal waxay tiri dhakhtarad bay ahayd maalintaas waan jeclaan lahaa inaa fasax helo oo fasax qaato sida ilaahay casa wajal u duceysta laakiin may noqonin rootaal igu qoray marka waa ku khasbanaaday inaa joogo isbitaalka laakiin waxay tiri maxay kugu taalaa markasta markaa qof u tagayana waa u tagaa marka kalena meesha ofiska oo dhakhaatiirta fariistaan intaa luuq samaysta ilaahay casa wajal intaas ku baryaa oo ku duceysta ilaahay laa xawla walaa quwata ilaa billah ducadii ina laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir maantoo dhan halkaasaan ku duceystaa waxay tiri 8 sane baa guur iga calaqsanaa سبحان الله إله عز وجل عرفضها اسمها عرفضها ذيك اللي انتي قارن already وان أروسي المان دالي ميل في عنو كفي عن ميشا هدا جوغا ميشاس مركاسي جوغتي إله عز وجل كو أرزاق إني تكتو نولول كالا تي كفي لا إلهي وكدو عيسى مد كسي عن با إلهي إسيه مركا تاس محينا توسيسا taas waxayna tusaysaa labadii waxaan dhahay diyaariye ma xasuusatiin labadii wax aan dhahay diyaariye waxay ahaayeen mid horta waa qalbigaada istighfaarta iyo tawbadan dhahnay tan labaad ee tahayna inaad diyaarisid wax waa warqad iyo qalin iyo ducooyinka rabtid ilaahay inaad ku duceysatid lama rabo ducooyin iska random wixii maskaxdaada soo gala inaad ku duceysatid maya waxaa lagaa rabaa caawa intaa fariisatid bal ilaahay casa wajal maxay tahay waxyaalaha oo aan rabo si kal iyo laaba ilaahay inuu ii bedelo waxaa lagaa rabaa ducooyin oo mucjisaad intee dad oo ilaahay casa wajal cudurro waaweyn iyo jirooyin waaweyn ee marna ka filanaynin ilaahay casa wajal inuu ka caafin doono ee maalinta carafa intii ku duceysteen ilaahay casa wajal ka caafiye oo ka shaafiye ayadoo dhahayan dhakhaatiirta marna cudurkan daawo ma laha marka waxaa lagaa rabaa ducooyin oo simple ha ku duceysanin ducooyin oo mucjiso oo mid kastaba midaa isdhahaysidba tan mid surtoobaysa ma aha taas waaba number 1 inaad ka dhigtid duco kastoo mucjiso inaad ku duceysatid ilaahay waxaana ogaataa يعني مركو نبي عليه الصلاة والسلام دهي خير الدعاء يوم عرفة الدعاء ugu wanaagsan aniga iyo anbiyada igu horeysa aan ku duceysana wixii ahayd maalintaas يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير marka u fiirsatay ducadaasna يعني سبحان الله والدعاء oo ku haboon oo يعني istaahisha maalintaas in lagu duceysto لأنه إلهي وحو كليه أنيغا أنبا وحكستا كو سمين كرا يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحكستا أساقاله ملكي قردن أساقاله وحكستا أربتد وحكستا قلبي قادة كتشرا وحكستا مستقبل كربتد وحكستا إسلاده مهي اللي كرتد أو يعني كوريوني أما ربتد ياله at the end of the day ياله إلهي باله له الملك wax kasta aad rabtid lahu lmulk yaa leh yaa waxaas leh the ownership oo runta ah yaa lahaanta runta ah yaa leh ilaahay baa casa wajal lahu lmulk walahu alxamd inaa markasta ku xamdino ku shukrino wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kasta ilaahay uu awoodaa wax kasta yani kun fayakun bay ku tahay ilaah casa wajal daas waa lagu leeyahay ducada ugu khayr badan maalintaas waa ducadan
يعني سبحان الله يعني وحلا سو كوبي كر يوم العرفة كلجين وكبوحدين فضل جيدا إيو وناج جيدا لكن لما وحبا ربا إنا مور يعني ريفلكشن كسمي مور كسي فكرتين لaba farxadood oo caqliga soo koobi karin baa maalintaas dhacday. farxadda ugu horeysa waxay ahayd subxaan allah farxadda nebi ibraahim calayhi salaam. يعني وقتigaas ma يوم العرفة lahayd maalinta carafa ma ahayd mise maalinta naxar ma ahayd ma xasuusto laakiin subxaan allah farxadda oo nebi ibraahim calayhi salaam asagoo naxdintii iyo murugada ugu weyn يعني ما إيماجين كرين كرتا أضو لغوليه ويلكاذا ولمن دونا أو اللي بقى عن هذا نقول لمن دونا ويلكاذا يرى أقول عشة وقتك الماء أقول يري أقول بعسين أقول في عينه أو قلبي والد كساس أسود شيء ذنا عيتهاي bahadana intuu kaa dhinto adiga gacantaada ku dili doontaa. يعني سبحان الله وابتلاء عظيم وامتحان عظيم وامتحان آدي وأضق وي سبحان الله. مركز سبحان الله أسوغو النبي إبراهيم وتله الجبين وويلكي خلاص واتاسا هوشي ساس مركو اللي عربتي إلهي عز وجل مركز وحو صدري سبحان الله كبش كاس أو إلهي عز وجل أضحية أو إلهي عز وجل أو كردقي ماشي قورتي نبي إسماعيل وحو كردقي كبش داس مركز سبحان الله can you imagine فرحد والد كاس farxadda waalidkaas nebi ibraahim calayhi salaam oo asagoo yacni boqolkiiba boqol aaminay oo kal iyo laab rabay inuu qalbigiisa u awfiyo oo u fuliyo wuxuu ilaahay amrigu ilaahay casa wajal usoo diray ya haddana saasoo tahay ilaahay casa wajal asagiina wuu ku badbaadiyey inuu ilaahay casa wajal warkiisa oo jabin oo dhihin wiilkayga aniga ma qalaayo. إلهي عز وجل وكبت باديي مطيع بو نقضي إلهي عز وجل نبي إبراهيم هديدنا وحو أغردقو كلا إنو ويلكيسو بدبادية سبحان الله. مرنا ولا فرحة نبي إبراهيم فرحة أقول ريسي إنو إلهي عز وجل أمريكيسي إنو قاطي أو يعني وحو إلهي هاي سمي واسمي أو كمان نقونين أو كمان شكين إنو قلال أمبحين واسمي سبحان الله. طلباتنا inuu ilaahay casa wajal oo farxad qalbigiisa geliyey oo wiilkiisii badbaadiyey. farxaddaas farxad aad iyo aad u cajiib ah. farxadda kalena waa farxadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo maalintii asagoo carafo taagan iyo xajatul wadaac oo la dhahay alyawmu akmaltu lakum diinakum waraditu lakum alislaama diina. subxaan allah yani waxaa imaajin garaysaa oo ka fakartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadan intuu usoo maray allah muxuu dhib usoo maray nabiga calayhi salaatu wasalaam yani intee dhib buu soo maray. waxaa kasoo qaadaa markii oo maalintuu sujuudaya maka sujuudaya oo kufaartii quraysh oo nabiga baktiga xayawaanaadka baktigoodii iyo mandheertoodii waxoodii iyo saas ee madaxa ugu tuurayeen ee ka faanayeen ee caynayeen ee liidayeen. subxaan allah allah muxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhib usoo maray diintan iyo inuu diintan soo barbaariyo oo soo wado oo yani dacwatul islaam inuu meel kasta geeyo oo intee dad uu jecel yahay uga dhintay. adeerkiisuu jeclaa xamza seebuu u dhintay muxuu u dhintay faafinta diintan buu u dhintay oo xitaa markii xitaa khadiijatu radiallahu canha nabiga adeerkiis dhibaatada oo gaajo darteed buu u dhinteen dadkaas iyo cunto la-aan oo lagu cunto qabadeyn lagu qabtay. subxaan allah intee murugo buu soo maray nabiga calayhi salaatu wasalaam intee naxdin buu soo maray intee dhib iyo qahar buu soo maray. markaasaa maanta laga farxiye diinta intaasoo sane aad usoo halgamaysay usoo dagaaltamaysay diintaas maanta waa dhammaystirnay. maanta waa maalintii farxadaadii mission accomplished maxamed sala allahu calayhi wasalam congratulation يعني رسالة waa أديت الأمانة رسالة waa complete خلاص maanta hooshii intaas usoo jabtay maanta waa oofisay
diintiina ilaahay casa wajalna waa kuu akmeliyey khalaas subxaan allah farxadda badanaa imtixaanu intaasoo dhan kusoo jiray intaasoo sanawaatu kusoo jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku anjaxay ku aflaxay oo maanta dadkii oo dhan hadduu bidix fiiriyaba dad badan hadduu midig fiiriyo dad badan oo yacni subxaana allah idaa jaaa nasrullahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja markaasaa farxad iyo bishaarad kalena loo sheegay fasabbix bixamdi rabbika wastakfirh inahu kaana tawaaba oo abubakr sidiiq gartay oo dhahay this is ishaara tan waa sarbeeb oo loogu sarbeebinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad arki doontid khalaas adduunyadan waa lagaa soo xirxirayaa adduunyadan khalaas waad samaysay intii lagaa rabay haddana waxaa u socotaa alrafiiq alaclaa jaceylkaada ugu weynaa baa u socotaa allah casa wajal yaa allah ambiyadii ilaahay casa wajal iyo yani iyo aakhirada iyo adduunyadaas kale oo cajiibka ah oo quruxda badan dhibaatadii halkan kaasoo martay iyo xanuunkii iyo dhibkiina iyo dadkaas intaas oo saas kugu ahaaba ilaahay casa wajal khalaas hadda aakhiro iyo naciin iyo fardoos iyo farxad iyo يعني الرفيق الأعلى بقى سعته لكن أبو بكر الصديق بقى مركز قرته ومركز سورة داس لسودتشي مركز the point وحواية فرحت ومالين فرحت ومالين كفر حيث النبي عليه الصلاة والسلام وانا مالين كفر حيث النبي إبراهيم عليه السلام ومالين إيتا أنا كان إنا فرحنا فرحت داسنا وحا نوصي لبلاب مايا مركز دعوين كان إنتان ديار سني oo ilaahay casa wajal kabar in wax kasta jeceshahay kabar ilaahay wax kasto qalbigaada farxad ku abuuray adduunyo aakhirana yaala ilaawin adduunyo aakhiraba hala xasuusto aakhirana ducada ugu muhiimsan ay tahay inaad ku duceyso inuu ilaahay raali naga noqdo ilaahay hadduu raali kaa noqdo farxad adduunyo waa helaysaa farxad aakhirana waa helaysaa marka subxaan allah yowm alcaraf waa yowm alcadiim aad duceysano isku soo duceyno especially ducada bakhiil ha ku noqon adiga naftaada maanta oo dhan u duceysan dadkaad jeceshay ummadda muslimka u duceyno weliba waxaa lagu leeyahay marka qof kale u duceysid malagkaa kuu duceynaya ilaahayow rabbi raxmaan waa ujeedaa sida u duceynayso walaha almithl ayadana intaasoo iyo ka badan si intaasoo kale si ducada oo malik uu kuu duceynayana malaa'igta ilaahay ducadii kuu duceynaysana طبعا waa mustajaab marka ummadda u duceyno wadankeena Soomaaliya u duceyno ummadda islaamka oo dhan u duceyno dhib kasta muslimka dawladaha islaamka meel kasta dhibka haysta ilaahay rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka barinay ilaahay farxad kulligeen intii dhageysanaysay walaalaheen meel kasta joogaanba ilaahay farxad iyo wanaag iyo hidaaya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي وحان كبر إن فرحت الدنيا آخره إلهي كل جينا هنجوض فرحيو واحد شعشين يكبضني مراد كيني مراد كبضن بإله نسيو إلهي وحان كبريه إن الدعاء كسا كل دعاء سنيسين مدة كفلين يسين إيه لبلاب يفرحد يبرواقي يبركي بخير وقصي بدن أنت إلهي كبريسين mid ka badan ba ilaahana sii siiyo iyo kulligeena isku soo duceyna biidni illaahi tacaala wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh peace and love asalaamu calaykum